حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله وبعد. walaalyaal waxaan ku guda jirnaa weli bishii barakaysnayd ee Ramadaan. tobankii ugu horeeyay ayaanu soo qaadanay, tobankii dhexe ayaanu galnay. marka waxaa laga doonayaa qof walba oo muslim ah inuu isxisaabiyo inta aan la xisaabinin. tobankaasi maalmood oo la soo dhaafay maxaa ku hagaagay, maxaa ku suurtagalay oo ahmiyadii aad lahayd inaad qabato ahayd, maxaa qabatay, maxaa ku hirgalay. marka inta aan loo xisaabinin waa inaad isxisaabisaa, waayo ramadaanka waa bil cibaado iyo soon weeyaan, ma aha bil oo musalsalaad iyo bil cunno keli ma aha. marka si ay inoo sahlanaato in naftaada aan xisaabino, waxaan halkan ka soo jeedinayaa 3 checklist ayaan soo jeedinayaa oo muhiim ah, aad u muhiim ah, oo kana mid ah asraarta ramadaanka ka mid ah. 3daasi checklist maxaa kuuga hagaagay oo ku hirgalay. tan koowaad waa at-taqwa, midda labaadna waa al-muraqaba, muraqabatullah. saddexaadna waxa weeyaan qiraa'at al-Qur'aan. marka 3dan checklist ayaan doonayaa in ma arkino qof waliba oo nafsadiisa kula xisaabtama. midda koowaad oo taqwa ah, Allah subhanahu wa ta'ala ramadaanka markuu inuu waajib yeelay, sababta ugu muhiimsan oo ramadaanka lagu soo waajib yeelay ayaa ah at-taqwa, alla ka cabsi. wata Allah subhanahu wa ta'ala uu yiri la'allakum tattaqun. marka tobankii maalmood oo la soo dhaafay taqwadaadi ma ziyaaday weeyaan, inaad nafsadaada xisaabisaa oo aad qortaa oo checklistiga koowaad weeyaan. haddaysan ahayn taqwo ku ziyaadin, macnaha ramadaankaadii wax baasi ka aha. waa inaad nafsadaada ku noqotaa tobankan dhaxda ahna aad ku dadaashaa weeyaan, si aad u sixi lahayd muhiimadaasi koowaad. waayo dad ayaa jira oo ramadaankoodii oo dhan maanta oo dhan biyo iyo haraad iyo gaajo ay u joogaan oo wax faa'iidana aan ku haysanin. kam min saa'imin laysa min sawmihi illa al-juu'u wal-'atash. gaajo iyo haraad keliya wax kaloo faa'iiday ma lahan, waayo taqwadii laga lahaa iyo muhiimadii laga lahaa umaysan ziyaadinin. marka haddii taqwadaadii aysan ziyaadin, wax baa kaa qaldan. wixii kaa qaldanaa waa inaad ogaataa in maxan baad ku jirtaa oo ma arkino iyo xumaanta kalaad ku jirta. wanaagii laga rabay oo bisha ramadaan wanaagii in aad samayso laga rabay aadan samaynin. man lam yadac qawla az-zuri wal 'amala bihi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. النبي عليه الصلاة والسلام ويقول marka haddii oo xumaantii iyo qowl zuurkii iyo camalkiisa aad ku camalto iyo jahligii aadan weli iskaada dhaafin, fadhi ku dirirka aad fadhida dadkii xamanaysa, marka soonkaadii oo dhan ajarkiisa dad kala qaadanaya oo dhib la'aan ku qaadanaya. maanta oo dhan soo soomaneed gaaji iyo haraad aad isu soo dishay, taqwo kuma ziyaadin, wax baa kaa go'aya. marka soonkaada rawaabkii oo dhan dad kala qaadanaya aad u fududaysay. taas waa midda koowaad oo checklistiga ah oo u baahan in aan nafsadeena ku xisaabino. hadday ku hergashay waa inaad laba jibaartaa tobankan dhexe. haddaysan ku soo suurtagelin oo taqwadaadii aysan ziyaadin, leanna iimaanka iyo taqwada waxay ku ziyaadaan bitaaca wayanqus bilmacsiya. iimaanka iyo taacada waxay ku nusqaamaan macaasida, taacadana way ku ziyaadaan. marka waa in nafsadaada taas aad ku xisaabisaa koow. midda labaad al-muraqaba wa muraqabatullah. soonka sidiisaba waa asraartiisay ka mid tahay. waxa aad u maarkano muhiimadiisa ay u tahay muraqabatullah subhanahu wa ta'ala ayuu ziyaadiyaa. waxaa laga yaabaa maanta in aad keligaadii meel inta aad fariisato gurigaadii ama xafiiskaadii ama meel adig keliga ah oo cunno iyo biyo iyo waxa dhan ay ku yaalaan, haraad iyo gaaja ku haysa. waad cuni kartaa keligaadii oo qofku ku jeedo ma lahan, waana soomanahay waa dhihi kartaa. laakiin waay aad u diiday oo aadan u samaynaynin, Allah subhanahu wa ta'ala ayaad ka baqaysaa dartiisaan u samaynin. waxaad u soontay Allah dartiisa. marka waa muraqaba, asoo ku jeedo oo kale ayaad uga xishootay Allah subhanahu wa ta'ala. saali ajligeeda
marka xillada maalinta markaas ay taagan tahay waxaa laga rabaa in aad ka faa'iideysato fursad hamiina dahabiya weeyaan inaad gacmahaada inta kor u taagta oo Allah subhanahu wa ta'ala la hadashid ya Allah dartaadan u soomay gaajo iyo harada ihay ya Allah waa kana waa cuni karaa oo hortayda yaalaan cunaydii iyo wixii oo fridge-kii ka buuxda cuntadii bihii waa kana inta yaalaan laakiin dartaadan isaga daayay marka iimaankaadii waa ku ziyaadaya muraaqabatullaahi ayaa ku ziyaadaysa hadhow ramadaanka kadibna way ku sahlanaanaysaa in oo muraaqaba ay noqoto haddii maxaarimta Allah iyo wixii Allah ka xarimay aad la keli noqotid waxaa soo xasuusanaysaa ramadaankii sidii aad haraadkii adoo ku haya iyo oonkii iyo gaajadii ku haysa aad oo isaga daysay oo Allah u baryaysay taas ayaa ma arkin oo ku ziyaadaysa tii soo xasuusanaysaa isla markiina waa ka haraysaa waxda ya Allah waxaan dartaadan u dhaafay kaligeeyaan ahay waa sameyn karaa laakiin dartaadan u dhaafay Allah man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khayran minhu ninkii Allah dartiis wax uga tagana wax ka khayr badan ayaa Allah uga bedelaya marka walaalayaal muraaqabada oo ramadaanka aad bay muhiim u tahay marka tobankii la soo dhaafay muraaqabadaadii ma ziyaadin haddaysan ziyaadin ka faa'iideyso tobankan dhexe ka faa'iideyso oo maalin qaado oo inta kaligaad fariisato oo gaajo ama wax ku qabtay oonkii ku hay Allah subhanahu wa ta'ala la hadal meeshana Allah ku bariya Allah iina sahal haddii aad ahayd ramadaanka ka hor oo xumaan laga yaabo inaad soo samaysay oo kaligaadii adoo ah oo Allah hadan ka xishoonin waayo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri yastakhfuna min an-nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda min al-qawl dadkay ma artayn dhahooda ayay iska qarinayaan laakiin Allah iskama qarinin Allah iskama qarin karo marka Allah oo ku jeeda ayaa laga yaabaa in xumaan aad ku soo dhacday tan ramadaanka marka fursad dahabiya weeyaan oo muraaqabatullah subhanahu wa ta'ala ay kugu ziyaadaysa bacda ramadaanna aad ku wadi kartid oo fursa min intilaaq ramadaan aad sameyn kartid oo baaqi shuhuurtan oo bilahan dhiman oo aad ku sameyn karto muraaqabatullah subhanahu wa ta'ala oo darajatul ihsaan in aad gaarto laga yaabo markaas an ta'budu allaha ka'annaka taraah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak wa darajatul ihsaan oo darajada ugu sareysa ah marka ramadaanka ayaana xaqiijiyay taas haddii aad ka faa'iideysato weeyaan midda saddexaad oo ah qiraa'atul qur'aan ramadaanka waayo waa ramadaan bishii oo la soo dejiyay qur'aanka in marka qur'aankana aad akhrisid haddii ay tobankii la soo dhaafay aadan akhrinin tobankan dambaad fursad haysataa oo inaad ka faa'iideysato ay tahay ibnu qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah wuxuu yiri waxa ugu wanaagsan oo Allah loogu dhawaado kalaamkiisa weeyaan marka kalaamka Allah inaad akhriso oo bishii ramadaan oo shahru ramadaan alladhi unzila fihi al-qur'aan ay tahay oo qur'aanka la badiyo waxaana haboon in habeenkii aad akhriso wax yarba ha ahaatee waayo nabiga alayhi salaatu wasalaam jibriil ayaa u imaan jiray habeen walba wuxuuna sameyn jiray kaana yudaarisuhu qur'aanka ay muraajaco ku sameyn jireen habeen walba marka habeenkii aayado oo yar yar ha ahaadaan wax inaad akhrisaa fiican maalintii la akhriyo habeenkii fadli badan marka waxaan ku soo koobayaa saddexdan checkpoint waa aad bay muhiim u tahay waa asraar ramadaaniya weeyaan taqwa oo ramadaanka Allah subhanahu wa ta'ala uu yiri la'allakum tattaqun taqwa hadaysan ku ziyaadin tobankii dambe tobankan isxisaabi oo ku ziyaada taqwa tobankan dambe haddii ay ku ziyaadina laba jibaar sameey midda labaad oo muraaqabatullah subhanahu wa ta'ala alla kaligiisi adoo khalwa ah in aad ma arkino Allah subhanahu wa ta'ala uga faa'iideysato jaaniskaasi qaadato oo sida shaacirka uu yiri ida ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu ولكن قل علي رقيب marka kali aad noqoto hadhiina waa kaliyaan ahay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa raqiibkaada oo ku jeeda marka sida ramadaanka oo aysan qof kugu waajibiyeen oo kugu maarkin oo dhihin ha cunin oo kaliya adoo cuni kartid aad isaga daysi taas oo kale maxaarinta kala isaga daynaysa midda saddexaadna waxay ahayd waa qiraa'atul qur'aan marka saddexdaani oo checklist aad bay u muhiim u yihiin oo in ramadaankan tobankii la soo dhaafay xisaabi tobankan dambana laba jibaar sameey waa intaan ku soo koobaya wa aakhiru dacwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu calaykum wa rahmatullah